COVID-19 waa mid ka mid ah cudurradii ugu xumaa ee casrigan soo mara caalamka, kaasoo si weyn u saameeyay adduunweynaha sidoo kalena argagax ku abuuray shucuubta caalamka gebi ahaanba, iyadoo xaalad go'doon lagu soo rogay magaalooyinka waaweyn iyo goobihii ugu saxmadda badnaa caalamka. Waxaa albaabada la isugu dhuftay dhammaan goobaha waxbarashada, goobaha fadhiga iyo cawaysyada. Masaajidda ciidda ka badan ayaa iyana albaabada loo laabay, kuwaasoo ay ugu horreeyaan xarameynka Maka iyo Madiina. su'aalo kala duwan oo la isweydiinaya ayaa jira siba ahaan saamaynta uu ku yeelan doono qaab dhismeedka iyo jiritaanka nidaamka caalamku imika ku dhisan yahay. Isbeddel noocee ah baa ku dhici kara maadaama uu yahay fayraskan la magac baxay COVID-19 khatar si weyn u wada taabatay caalamka oo dhan, kaasoo ilaa hadda galaaftay nafaha in ka badan 130,000 oo qof, kuna dhacay 2 milyan iyo wax ka badan tan iyo markii uu ka dilaacay Shiinaha bishii December ee sanadkii la soo dhaafay. aafadan ayay dad badani aaminsan yihiin inay isu dheelitir ku samayn karto awoodaha iyo tartankii ka dhexeeyay Shiinaha iyo reer galbeedka. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo sharaxaya waxa dunida ka dhacay hadda ayaa yidhi dagaal ka dhan ah cadow aan la arki karin ayaanu ku jirnaa, isagoo intaa ku daray waxa ah in goor hore laga hadlo dhibaatooyinka dhaqaale iyo ta siyaasadeed uu reebi karo coronavirus marka laga hadlayo nidaamka caalamiga. Si kastoo ay ahaataba, diblomaasiyiin iyo aqoon-yahano badani waxa ay ka warqabaan inuu fayraskani yahay bilow cusub oo caalamkani yeelan doono, isagoo yeegleeli doona nidaam ka duwan kii hore uga jiray. waxaa muuqata in dowladaha bariga ee Shiinuhu ugu horeeyo iyo wadamo badan oo Aasiya ah sida Japan, South Korea iyo Singapore ay ku guuleysteen la dagaalanka cudurkan COVID-19. cilmi baadhayaal iyo aqoon-yahano kala duwan ayaa ku tilmaamaya in xakamaynta iyo la tacaalidda dowladaha reer bariga ee xanuunkani tahay mid xidhiidh la leh nidaamka siyaasadeed ee ka jira dhulkaas, kaasoo ah ku dhisan badidiisu kelgiitalisnimo, islamarkaana ay dowladahaasi awood u leeyihiin fulinta dhammaan qaababka kala duwan ee looga hortagi karo xaalad kasta oo degdeg ah, iyadoo ay dalalka reer galbeedka ee dhigooda ahi taas kaga duwan yihiin. waxaa la aaminsan yahay ama ay muujiyeen go'aamada adag ee Shiinuhu qaatay, sida bandowgii uu caalamka kaga gooyay magaalada Wuhan, taasoo ahayd meesha ugu horreysay ee xanuunkani ka dilaacay, inay ahayd tallaabo lagaga hortegay xakamaynta masiibadan iyo faafitaankeeda. Stephen Walt oo ah professor diblomaasiyadda caalamiga ka dhiga dugsiga John F. Kennedy ee jaamacadda Harvard ayaa aaminsan in Shiinaha laga yaabo inuu ku guuleysto hoggaanka caalamka, isagoo intaa ku daray in coronavirus yahay mid dardar gelin kara isu dheelitirka awoodaha dunida ka jira. waxaa loo arkaa waayo aragnimada ilaa hadda ay muujisay dowladda Shiinuhu mid lagula tacaali karo xanuunka coronavirus, sidoo kale in ay tahay mid kaga horumarsan dowladaha reer galbeedka oo u muuqda kuwa ku hafanaya badweyntiisa. waxaa iyana jira dowlado reer bari ah oo aanu fayraskani saameyn ku yeelan sida Taiwan iyo Kuuriyada Koonfureed oo iyagu dimuqraadi ah. Francis Fukuyama iyo Henry Kissinger oo iyagu ah Maraykan kana mid ah haldoorkiisa ayaa iyana saadaaliyay inuu iman doono nidaam ka duwan kan maanta ka jira caalamka, kadib fashil ku yimi qaramada midoobay iyo laamaheeda sida ururka caafimaadka adduunka ee WHO, kaas oo uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ku dhawaaqay inuu gebi ahaanba joojiyay dhaqaalihii ku bixin jiray ururkaas. midowda Yurub ayaa isna u muuqda mid goldololooyin badan ka jiraan, maadaama uu ahaa urur iskaashi waqti xaadirkana xubnihiisu isu gurman la'yihiin. khasaaraha dhaqaale oo uu geystay coronavirus ayaa muujiyay inaanu caalamku sidii hore noqon doonin, waxaana laga yaabaa inay abuurmaan arrimahan soo socda. in dowlad kasta xoogga saarto caafimaadka, samaysana miisaaniyad adag si looga hortago masiibooyinka noocan ah. 2 in dowlad walbaaba keligeed isku koobnaato, taasoo dhaawici doonta hay-adaha caalamiga ah iyo wadajirka adduunweynaha ama waxa loogu yeedho globalizationka. 3 inay xoogaysato faragelinta dowlad waliba suuqa ku leedahay, taasoo dhaawici karta suuqa xorta ee uu ku dhisan yahay nidaamka raasamaaliga ee adduunka maanta ka jira. ma ogtahay in aanu Shiinuhu ka duwanaan doonin marnaba reer galbeedka iyo shirkadihiisa raasamaaliga ah, kuwaasoo burburiyey dowlado badan, sidoo kalena boobay khayraadka ku duugan caalamka Islaamka iyo Afrikaba, isagoo sheeganaya dimuqraadiyada iyo haddana taageero u ahaa keligood talisyada ka baxsan dhulkiisa, islamarkaana isha ka lalinayay qiyamka uu xambaarsan yahay, maslaxadiisana ka hormarinayay wax walba. Shiinuhu waa dal asal ahaan shuuci ah, kuna caana diktaatoriyad iyo nidaamka halka xisbi,
haddaba daawada ma isleedahay Shiinuhu waa uu ka duwanaan doonaa wadamada reer galbeedka haddii uu kaga gacan sareeyo siyaasadda caalamka? Asani daawade waa diyaarintii Cabdicasiis Axmed Xaashi iyo tabintii Cabdiraxmaan Nuux Xaaji Maxamed.